waxaa shalay iyo maanta iyo maalmahan meeshaan uga socday midowga murashaxiinta la tashiyo ay bulshada qaybeeda kala duwan ay la yeelanayeen waxaad ogtihiin duruufta maanta dalka uu maraayo iyo xaaladda ay mataqaana ay ku sugan tahay oo ah xaalad horay dalka aan usoo marin doorashooyinkii laga soo bilaabo 20 sano ugu dambeysay waxaa kulantay in hay'adihii dastuuriga ahaa oo madaxweynaha iyo baarlamaankiiba ay dhamaatay mandate-koodii oo madaxweynaha ugu dambeeyay in bixi ku agtahay waxaa rajo badan laga qabay shirkii dhuusamareeb ku soo fashilmay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay ka soo bixi doonto qaab doorasho heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho waxaad ogtihiin waxaa nasiib darro ah in meeshii wax heshiis ah aysan ka soo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan waxaadna ogtihiin in maalinka 8 ah in ay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 27 la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso intiba maysan dhicinin dadka Soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii saddexda qodob la isku hayay in dhuusamareeb looga soo heshiiyo hadda waxaa nasiib darro ah in madaxweynihii federaalka uu ka yimaado dhuusamareeb iyadoo wax heshiis ah uusan la soo gaarin dowlad goboleedyadii waxaadna ogtihiin saddexda qodob oo la isku hayana inuu saldhig u ahay khilaafkeeda inuu asaga oo ahay mid uu saldhig u yahay marka arrintaas maadaama aysan ahayn arrin hore dalka uga dhici jirtay in mandate-kii dastuuriga uu dhamaado doorashada qaabkii lagu geli lahaana aysan cadaynin waa arrin u baahan in dadka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed wax laga weydiiyo oo fikir midaysan oo lagu wajahi karo oo dalkan marxaladaas kala guurka ah doorasho lagu geli karo in la helo arrintaas golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeed iyagoo ka ambaqaadaya shalay iyo maanta ay khamiistii iyo maanta ay la galeen shirar qaybaha kala duwan ee bulshada khamiistii waxaad ogtihiin inaan la shirnay odayaasha dhaqanka maanta culimada iyo ururada bulshada rayidka ah walina fikirkii waa wadnaa ujeedkuna waa in dalkan oo doorasho galo waxaad ogtihiin dowladnimadu waxay ku dhisan tahay waa sharci madaxweynaha Soomaaliya waxaa la doortay 4 sano oo ka bilaabanaysay 8 February 2017 oo ku eg 7 February 2020 baarlamaanka waxaad ogtihiin horey uga soo dhacday December 27 2020 iyadoo ku ekeed waxay ahayd in processkaas maanta uu gabagabay yahay oo waxaad hadda aad mataqaana maanta waxa loo joogay inay tahay doorashada bishii 8 inuu diyaar yahay madaxweynaha xilka lagu wareeji lahay marka taas duruufaas xaaladda dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay keentay in dadka Soomaaliyeed tala lagu laabto talana la weydiiyo golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeedna shirkaas uu maanta meesha ku qabtay waana mahadsantihiin intaasaan rabay inaan idin sheego taa shaki kuma jiro maxaa yeelay waxaaba cadeyn u ah markii uu aadayo madaxweynaha dhuusamareeb baarlamaanka hore u soo balansaday si halkaas markuu soo kala diro oo khilaaf uga soo tago muddo kororsi oo baarlamaanka u weydiisto marka waa maantana waa inay muuqatay taas wax hadal ah oo anaga aan qabno ma ahan maxaa yeelay haddii niyad sami iyo niyad wanaag iyo heshiis dhuusamareeb madaxweynuhu uu ku aadi lahay baarlamaanka hore uma sii balansadeen marka taas wax shay ku jira ma aha haddii aan ku weydiiyo labadii madaxweyne ee ka horreysay farmaajo waqti ay ku darsadeen xasir lixdood ku darsaday shariifna waa ku darsaday sanad ku darsaday sababta hortaagan in waqti uu ku darsado madaxweyne farmaajo maxay tahay waxaa laga hadlayaa tii madaxweyne xasan sheekh markaan ka soo bilowno madaxweyne xasan sheekh intaan mandate ku dhamaanin ayaa laga heshiiyay qaabka doorashada loo galayo waxaad ogtihiin dalkan ma lahan institution oo dhammaystiran oo shaqada waqtiga loogu talagal ku qaban kara waxaa jiitamay shaqada qabashadeedii laakiin inta dhamaaday mandate-kii aniga waa iska soo joogaan xasan sheekh ma uusan dhihinin madaxweyne sheekh shariifna saas oo kale ahayd mandate-kii oo taagan oo wali hay'adihii dastuuriga ah ay leeyihiin shuruucda iyo dastuurka oo ogolaya inay shaqeeyaan ayaa go'aamo la gaaray laakiin tan waxaa laga hadlayaa waxay tahay yaa maanta leh awood sharci oo mataqaana oo muddo kordhin samayn kara waxa kaliya oo marka waxa laga hadlayo waa mataqaana hay'aduhu intay shuruucdooda ku taagan yihiin oo ay mandate ka haystaan go'aamada ay gaaraan waa sharci laakiin markii mandate ku dhamaado kadib
aniga waa la joogi jiray anigana waa iska joogaa waxay leedahay inaysan sharci noqonin waqtiga hay'adda madaxweynuhu uu dhamaaday waxaan loo baahan yahay waqti doorasho lagu qabto idinku halka maxaad u aragtaan weli xalka annaga aanu aragno tashiyaan ku wadnaa bulshada waana idin soo bandhigaynaa madaxweynaha maanta waxa uu sheegay in wax firaad dastuuri aysan dhicin doonin isagoo baarlamaanka hor hadlaya 8 February haddii la gaaro muxuu yahay go'aankeena annaga 8 February dastuurka sheegaya idinkaa wada og dadka Soomaaliyeedna og yihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisu inay 4 sano tahay taas meesha ku jira go'aankeena muxuu yahay annaga go'aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka wixii ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigeena soo bandhigayna waan idin la wadaagaynaa waana mahadsantihiin